السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب كحرين شنالكيga Jabuuti Xasan waxaan u salaamayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي dhammaan asxaabta inta igu cusub iyo inta markii hore ila socotay waa Jabuuti Xasan Cabdi ama Cabdisana Xasan Cabdi ayaa la yiraahdaa, laakiin Jabuuti waa naanaysteeda. YouTube-keygana waxaa ku qoran Jabuuti Xasan. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol heerka aad gaarsiiseen. maanta uu marayo subscribe-ka 500 ayuu ku dhow yahay. insha Allah inta dhimanna adinka gaarsiin doono habkii laga rabay, maadaama nin aniga aan iska fadhiyo inaan markaasi inii soo gudbiyo waxyaabaha markaasi iska dhacdhaca ama waxyaabaha adduunka cusub. hadda ka hor waxaan iga soo gudbin jiray Muqdisho Soomaaliya, laakiin maanta waxaan joogaa ama caawa waxaan joogaa Qaahira Masar. waxaan Muqdisho ka soo tegay 9 bishii shanaad 2021. caawana waxa ay tahay 18 bishii 6aad 2021. habeen sabti soo galayso oo jimco sii rawaxay. marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada channelka Jabuuti Xasan. dhammaantiin waa mahadsantihiin, aad iyo aad ugu mahadsantihiin heerka aad maanta aad YouTube gaarsiiseen. waxaan rabaa inaan inii sheego sidaan xamar ugu soo baxay iyo sidaan Qaahiro ku imaaday. fadliga Ilaahay iyo wax kasta ku dhacan Ilaahay ayaa soo tagiyay. arintana waxaa u imaada arrimo caafimaad iyo muraad kale oo gooniya. insha Allah haddii aan helana waa yaa mahadiis. sidaan marka aan fiisaha ku helay iyo sidaan ku imaaday safarkeygii intaba Allah soo tagiyay. maantaasna Allah iskale subhanahu wa ta'ala. wax kastana qadar Ilaahay ku dhacan. marka kowdii bishii Oktoobar 2020 ayaa waxaa dhacday inaan waraaqo inta iska diyaarsado caafimaad aan ka diro wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Muqdisho. markaas anigoo dalbanayo fiise aan rabo inaan Masar ku imaado ayaan markaasi fiisihii iyo waraaqihii ku xareystay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. markii ilaahay idinkiisna mudday iska maqnayd adigu 7 bilood camal, laakiin aniga markii 3 bilood camal 2 bilood ay dhaaftay waxaan isiri wax soo socda male.